waxaynu ku bilaabaynaa wararkayaga iyo barnaamijkaba Mareykanka oo digniin ku bixiyay in mar kale duqeyn uu ku qaadi karo Iiraan haddii loo baahdo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray digniin cad oo uu ku sheegay in Mareykanku uu mar kale weerar ku qaadi doono Iiraan haddii xaaladdu ay sidaasi qasbayso. Hadalkani ayuu ku qoray Trump bartiisa bulshada ee gaarka ah waxaana uu daba socdaa duqeymihii Mareykanka uu bishii Juun ku qaaday xarumaha nukliyeerka Iiraan ay leedahay kuwaasi oo Tehran ay qiratay in si weyn loo waxyeeleeyay. Trump ayaa yiri waan samayn doonaa mar kale haddii loo baahdo isagoo muujiyay mowqifkiisa adag ee ku aadan hamiga nukliyeerka ee Iiraan. Fariintiisu waxay timid xilli xiisad xoogan ay ka jirto bariga dhexe iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi uu xaqiijiyay in goobaha muhiimka ah sida Fordow, Natanz iyo sidoo kale Isfahan ay si weyn u burbureen intii lagu guda jiray weerarkaasi. Sirdoonka Mareykanka ayaa waxay ku andacoodeen in mid ka mid ah saddexda xarumood ee nuclearka la burburiyay gebi ahaanba halka waxyeelada guudna ay dib u dhigtay awoodda Iiraan ee ku aadan kobcinta uraniumka. Hadalka Trump wuxuu qayb ka yahay olole uu ku doonayo in uu dib ugu muujiyo awoodda military ee Mareykanka iyadoo ilo hoosena ay sheegayaan inuu doonayo in mar kale uu u tartamo aqalka cad ee looga arrimayo dalka Mareykanka. Iiraan ayaa ballan qaaday in ay dib u dhisi doonto isla markaasna dib u bilaabi doonto barnaamijkeeda nuclearka taasi oo sii horeysay cabsida laga qabo in colaad balaaran ay dhacdo maadaama aysan jirin wax horumar ah oo dhanka diblomaasiyadda ah oo laga gaaray arrintan. Digniinta Trumpna waxay sii xoojisay walaaca laga qabo dagaal cusub oo mar kale ka qarxa gobolka bariga dhexe. waa tahay aynu ku sii soconay isla wararka la xiriira suurtagalnimada weerar Iiraan lagu qaadi karo iyada oo mucaaradka Israa'iilna ay arrintaasi ku tilmaameen inay tahay weli mid miiska saaran oo la fulin karo xilli kasta. hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Benny Gantz ayaa sheegay in suurtagalnimada weerar military oo lagu qaado Iiraan ay weli furan tahay isla markaana waxa uu muujiyay walaac joogto ah oo laga qabo ee barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan isagoo ka hadlayay kulan xubnaha xisbiga ee Knessetka ku jira ay isugu yimaadeen. wasiirka hore ee difaaca ayaa carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay tahay inay diyaar ahaato haddii arrimaha ama dadaalada diblomaasiyaddu ay fashilmaan. Gantz oo sidoo kale hore u soo noqday taliyaha hore ee ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay horumarisay waa si hadalka u dhigay awoodaha lagu beegsan karo xarumaha nuclearka Iiraan isla markaasna ay sii xoojiyeen diyaargarowgooda dhanka militariga. wuxuuna yiri waxaa jirta iswaafajin u dhaxaysa baahi iyo fursad isagoo boogaadiyay tillaabooyinkii ugu dambeeyay ee lagu xoojiyay awoodda dhanka istiraatiijiyadda iyo tan cirka ee Israa'iil. arrintaasi uu ku daray in go'aan kasta oo la qaataa uu noqon doono mid aad loo miisaamay. hadalka Gantz ayaa yimid xilli Israa'iil ay ku sugan tahay midnimo dhanka siyaasadda ah oo naadir taasi oo ku wajahan Iiraan inkastoo khilaafka gudaha weli uu taagan yahay gaar ahaan xaaladda Gaza. haddana bishii hore ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu helay taageero ballaaran xitaa mid ka timid xisbiyada siyaasadda dhexe oo ku jira Gantz si loo fuliyo weeraradii lagu qaaday xarumaha nuclearka iyo gantaalada ee Iiraan. weerarkaasi bishii Juun oo lagu magacaabay wasidalka loo dhigay hawlgalka libaaxa soo kacaya ayaa lagu beegsaday xarumo muhiim ah sida Natanz iyo kuwa kale iyadoo Iiraan ay kaga jawaabtay weerar ay ku beegsatay goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha Israa'iil oo ay ka mid yihiin saldhigyada militariga, xarunta gaashaandhigga iyo weliba xarumaha dhanka sirdoonka. mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid horudhac ah oo lagu hortagayo horumarka barnaamijka nukliyeerka Iiraan inkastoo ay keentay walaac caalami ah oo laga qabo isballaarinta colaadeed ee gobolka ka jirta. Netanyahu iyo Gantz waxay ku doodayaan in hamiga nukliyeerka Iiraan uu yahay khatar ba'an oo ku wajahan jiritaanka Israa'iil taasi oo keentay in diyaargarowga military loo arko mid aad u muhiim ah. falanqeeyaasha ayaa aaminsan in hadalka Gantz uu culays ku saari karo Mareykanka iyo reer Yurub si ay dib ugula falgalaan Tehran iyagoo adeegsanaya waddo diblomaasiyadeed.
dhanka kalena ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa warbaahinta Israa'iil u sheegay in aysan jirin wax fursad ah oo nabadeed oo lala gaari karo nidaamka haatan ka taliya Iiraan balse waxa uu tilmaamay in dadka Iiraaniyiinta ah ay doonayaan inay afgambiyaan nidaamkaasi waa sida uu hadalka u dhigay isagoo mar kale ku celinaya hadalka turjumaya kala fogaanshiyaha sii kordhaya ee u dhaxeeya Tel Aviv iyo Tehran ra-iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu sidoo kale ku andacooday waa sida uu hadalka u dhigay in muwaadiniinta Mareykanka ee aan taageerin Israa'iil ay la micno tahay in aysan taageerin Mareykanka laftiisa hagaag wixii ku soo kordha xiisadaasi iyo wararkaasi iyo jawaabta ka timaada Iiraanna barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii Allah idmo markan waxaynu eegaynaa dhanka Yemen halkaasi oo xogaga Xuutigu war ay ka soo saareen weerar saaka ay ku dhardhaareen gudaha Israa'iil Xuutiyiinta Yemen ayaa shaaciyay in ay fuliyeen howlgal militari oo tayo leh kaas oo ay sheegeen inay ku beegsadeen garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee ku dhow magaalada Tel Aviv iyagoo adeegsanaya gantaalada nooca hypersoniga ee guuxooda ka dheereeya gaar ahaan gantaalka Falastiin 2 afayeenka militariga Xuutiyiinta General Yahya Sari ayaa telefishinka ka jeediyay khudbada ku faahfaahinayay howlgalkan waxaanu sheegay in howlgalku uu ahaa mid lagu beegsaday si toos ah garoonka diyaaradaha Ben Gurion iyadoo la adeegsanaya gantaalkaasi waxaanu sheegay in si guul leh loo gaaray ujeedada weerarkaasi isla markaasna uu sababay in hawlihii garoonku ay joogsadaan waxa intaasi uu ku daray in weerarkan uu ahaa argosi looga gol lahaa in meesha looga saaro cadaadiska lagu hayo shicibka Falastiiniyiinta iyo mid jawaab u ah sida uu yiri dambiyada xasuuq ah ee Israa'iil ay ku hayso walaalaheena ku sugan Mareykan Gaza kooxdu waxay sidoo kale sheegtay in weerarada ka dhanka ah Israa'iil ay sii socon doonaan ilaa la joojiyo gardarrada lagu hayo Gaza oo laga qaado cunaqabataynta lagu hayo isniintii Xuutiyiintu waxay sheegeen inay fuliyeen howlgal militari oo drones loo adeegsaday kaasi oo ay ku beegsadeen shambar tilmaameed oo gudaha Israa'iil ah oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha ee Ben Gurion iyo Ramon iyo dekada Elad waxay kadib markii Israa'iil ay duqeysay dekada Xudaydah ee galbeedka dalkaasi Yemen marka laga soo tago gantaalada ay ridayaan Xuutiyiintu waxay sidoo kale weerarayaan maraakiibta Israa'iil ay leedahay ama u socda iyagoo oo diidan dagaalka xasuuqa ah ee Tel Aviv ay ka wado marinka Gaza tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 Simodi oo suuqa ugu weyn ee dahabka ee bariga Afrika waxa uu macaamiishiisa ugu talagalay fursad cajiib ah oo marla araga haddii aad dahab ka soo iibsato Simodi iyo haddii aad iska iibinayso labadaba Simodi waxay ku siinaysaa fursad qaali ah oo aad ku guuleysan karto dahab kale waana fursad soconaysa bishan iyo bisha soo socota cajiib Simodi ka iibso dahab ama iska iibi oo hel dahab kale oo aad ku guuleysanayso fursadan guuleystayaashu waxay noqon doonaan 6 qof ee ugu horeeya waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta Kamal American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaareynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah waad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkana wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda bishaaro ma doonaysaan waalidka